boqortooyada Roomaanka ilaa Ingiriiska waxaa jiro 14 waddan oo Ingiriiska xorriyadoodii siiyay balse diiday in ay xoroobaan. Muuqaalkan maanta waxaan kuugu soo qaadan doonaa 5 boqortooyo kuwaasoo ka mid ahaa boqortooyooyinkii ugu waaweynaa ee dunida soo maray. Ka hor intaanu gudagelin barnaamijkeena, fadlan like saar si uu muuqaalka u gaaro dad badan. Midowga Sofiyeetiga inkastoo aanu ahayn boqortooyo, haddana aad bay ugu siibeeneed. Way adag tahay in laga hadlo waxqabadkeeda, laakiin Midowga Sofiyeetka ayaa ahaa kii ugu horeeyay ee gantaal hawada u dira, waana kii ugu horeeyay bini'aadan hawada sare u dira. Wuxuu sameeyay qoriga AK-47 kii ugu horeeyay. Waxa ugu wanaagsan ee uu soo bandhigay waa isbeddelka tayada warshadaha. Midowga Sofiyeetka ayaa wadamo badan xoog ku qabsaday isagoo warshado dhaqaale ka samaystay. Boqortooyada Roomaanka waxaa laga aasaasay magaalada qadiimiga ah ee Roma ee maanta loo yaqaano Talyaaniga. Guusha ugu weyn ay u soo bandhigtay aadamiga waa shucuurtii siyaasadeed, sidoo kale waa tii dhaqaajisay shucuubta Yurubta galbeed oo ah Jarmal, Faransa iyo Ingiriiska. Laga soo bilaabo marxaladii hore ee qabiilada ilaa xadaarad, waxa ay bareen qorista alifbeetada beeraleyda, waxa ayna bareen sharciyo siyaasadeed, waxayna u ogolaadeen in ay fariistaan baarlamaanka Roomaanka. La yaabna ma leh in inta badan Jarmal iyo Faransiis in ay jeclaysteen in ay kufsadaan gabdhaha Roomaanka si ay u yeeshaan carruurtooda jinsi Roomaan ah. Xadaaradii Masaarida. Xadaaradaasi waxa ay ka dhalatay dhulka maanta loo yaqaano Masar. Masaaridii hore waxa ay hindiseen kalandarkii ugu horeeyay, inkastoo aanu ahayn mid dhammaystiran, haddana ujeeddadoodii waa ay ka dhabeeyeen. Waxa oo kale ay dhisteen dhismayaal waaweyn oo ilaa maanta jira, inkasta oo ay dhaafeen 5,000 oo sano. Iyadoo aan la ilaabi karin, waxa ay ku soo biiriyeen cilmiga xidigiska, daaweynta dadka iyo jirdhiska xoolaha. Waxa ayna sameeyeen alifbeeto u gaar ah. Dowladdii Cabbaasiyiinta. Dowladdani waxa ay ka dhalatay khilaafkii Islaamka, waxayna ka bilaabantay magaalada Makka ee maanta loo yaqaano Sacuudiga. Guusha ay ka gaartay ilbaxnimada waxaa kuugu filan Jaabir bin Xayaa, aabihii kimistriga oo ka dhashay. Sidoo kale dhulkeeda in lagu farsameeyey aashitada sulfuyurig, iyadoo saldhig u ahayd in ka badan 20% warshadaha kiimikada. Dabcan iyadoo aan la ilaabi karin Abubakar Arraazi oo ka qayb qaatay dhinaca caafimaadka, iyadoo kaga duwaneed dowladaha kale in ay dadka ku qasbeenin in ay bartaan afkeeda Carabiga. Boqortooyada Ingiriiska. Waxaa laga yaabaa in aad la yaaban tahay sida luuqadda Ingiriiska ay ku faaftay ayna ku noqotay dalal badan luuqadooda koowaad, inkastoo aan ognahay in ay ku hadlaan 3.4 bilyan oo qof. Tusaale, dalalka looga hadlo Amerika, Canada, Australia waana luuqadooda koowaad. Sababtuna waa gumaysigii Ingiriiska ee dunida oo dhan oo ku qabsaday, maadaama 24% uu gacanta ku qabsaday dhulkan ballaaran. Boqortooyadani waxa ugu weyn oo ay aadanaha u soo bandhigtay waa luuqadeeda, maadaama cidi ay ka laheen. Maadaama Ingiriisku uu yahay luuqadda Laatiinka ugu fudud, waxa ayna Mareykan iyo Kanada ka dhigtay wadamo ilbaxnimo leh, halkii ay markii hore ahaayeen keymo iyo saxare. Boqortooyadani waxa ay bilaabatay sanadkii 1497 milaadiga, waxa ayna dhammaatay sanadii 1997. Dhammaan dalalkii ay gumaysan jirtay waxa ay siisay xorriyad. Iyadoo taasi ay jirto, haddana 14 waddan ayaa diiday in ay xorriyad qaataan, iyagoo weli isticmaalo calanka Ingiriiska. Waxaan halkaas ku soo gabagabeynayaa muuqaalkeena maanta.